Dib u dhigistu waa mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee maanta dadka ka hortaagan inay si dhammaystiran oo hawlkarnimo u qabsadaan hawlahooda. Sidoo kale dib u dhigistu waa cadowga koowaad uu qofku leeyahay, taasoo qofka ka dhigta inuu waqtigiisa iyo cimrigiisa uu ku beerdareeyo waxyaabo aanan wax faa'iido ah haba yaraatee aanan ka soo gelayn. Waxaad arkaysaa in badan oo dadka ka mid ah oo jecel inay gaaraan ahdaafta iyo qorshooyinka noloshooda ugu waaweyn, oo haddana aan awoodin inay u qaadaan hal tillaabo oo waxtar ah, iyagoona mar allaale iyo markay isku dayaan inay hawlahooda qabtaan ayay waxay si sabab la'aan ah u doorbidaan inay hawlahoodii iyo shaqooyinkoodii ay dib u dhigtaan. Runtii caadadan dib u dhigidda hawlaha waa mid dadka oo dhan ku dhacda, xitaa haddii uu qofku yahay mid ku adag go'aamadiisa. Waa mid marmarka qaar isku arka inuu ka fogaado saacado hawlihiisa. Runtii caadadan dib u dhigidda hawlaha hadduusan qofku ka adkaanin ama uusan ka qaadanin go'aamo geesinimo leh, waxay mustaqbalkiisa ka toori doontaa bohol dheer uusan weligiis dambe ka soo noqon. Sababtoo ah caadadan waxay curyaamisaa awooddii uu qofku u lahaa inuu si furan u qabsado hawlihiisa iyo shaqooyinkiisa. Waana caado sidoo kale qofka ka niyad jebisa inuu ku dhiirado inuu si dhammaystiran oo hawlkarnimo u qabsado hawshiisa iyo weliba ahdaafta uu ka lahaa noloshiisa inuu gaaro. Isla daqiiqadda uu qofku ku fikiro inuu hawshiisa u qabsado ayay waxay gelisaa caajis iyo cabsi meel ay ka timaaday uusan aqoonin, isagoona isla markaasna halkii loo baahnaa inuu qabsado hawshiisa ayuu intuu lugaha isa saarto ayuu wuxuu la soo kala baxaa moobilkiisa, isagoona markaasna hawshiisii ka doorbida inuu iskaga dhex jiro aaggiisa raaxada iyo maalaayacniga. Waxaa jira cilmi baaris la sameeyey 2007 ayaa waxaa lagu sheegay in 80% ilaa 95% ee dadka dib u dhigtaan hawlahooda muhiimka ah, iyagoona markaasna isku mashquuliya waxyaabo maalaayacni ah. Haddaba su'aasha meesha taalla ayaa waxay tahay, waa maxay sababta dadka ku kaliftay inay sidaas oo dhan dib ugu dhigtaan hawlaha noloshooda muhiimka u ahaa? Waxay cilmi baaristu sheegtay inay jiraan sababo badan oo loo aaneeyo inay dadku dib u dhigtaan hawlahooda iyo mashaariicdooda. Kow waxaa ka mid ah qofka oo ka walwala qaabka iyo siduu u qaban lahaa hawsha hortaala isla waqtigaas. Laba waxaa ka mid ah qofka oo ka niyad jabsan siduu u qaban lahaa markaas hawsha uu rabo inuu qabto. Saddex waxaa ka mid ah qofka oo niyad ahaantiisa aaminsaneen inay hawshu ku habboon tahay waqtigaas la joogo. Afar waxaa ka mid ah qofka oo iska dhaadhiciya inuusan wax niyada haba yaraatee uusan u helin hawsha uu rabo inuu qabto. Shan waxaa ka mid ah qofka oo dareema inuusan wax tamar iyo energy ah uu markaas ku qabto hawsha uusan helin. Intaasoo xaalad iyo in ka badan markay qofku soo wajahda kadib ayay waxay dib u dhigistiisii noqotaa mid ku daba dheeraata qofka, isagoona ugu dambeyntii noqda mid ku fashilmay hadafkiisii. Haddaba ma og tahay inay jiraan laba shay oo mar kasta qofka ka hortaagan inuu noloshiisa ugu xaqiijiyo, waana isla labada shay ee ka kooban tahay caadadan dib u dhigista oo ah ka cabsashada wax aanan jirin uu qofku ka baqo, iyo caajiska faraha badan uusan qofku awoodin inuu wax qabto. Waana laba cudur oo haddii ay qofku saameeyaan go'aamadiisa ka dhiga mid aanan haba yaraatee wax kartiya u lahayn inuu qabsado hawlihiisa. Waa inaad iska jebisaa waxyaabaha kaa dhigi kara inaad mar walba ahaato mid caajis badan oo aanan waxba awoodin. Waa inaad qaadataa go'aan geesinimo leh oo aad ku wajahdo cabsida kaa hortaagan bilaabidda hawshaada. Waana inaad u nidaamsataa waqtigaaga sida ugu macquulsan aad ku nidaamsan karto. Waxyaabaha mar kasta kuu keena inaad ka caajisto hawshaada waxa ugu horeeya waa inuu waqtigaagu uu yahay mid isku dhex yaacsan oo isku habaysnaan. Ma og tahay inay jirto farsamo la yidhaahdo farsamada 5 ilbiriqsi ama 5 second rule? Farsamadan waa isla daqiiqadda aad rabto inaad si dhaba u qabato hawshaada inaad isla markiiba ku dhaqaaqdo adigoo markaas tirsanaya ilaa iyo 5 ilbiriqsi. 5 4 3 2 1 kadibna aad hawshaada u gasho sidii gantaalkii oo kale. Haddii kale maskaxdaadu waxay bilaabi doontaa inay u janjeersato dhankaas iyo dib u dhigashada. Farsamadan waxay maskaxdaadu u ogolaan doontaa inay tirtirto shakiga, cabsida iyo shucuurta kaa hor istaagaysa inaad qabato hawshaada. Markaad si dhaba u bilowdo isticmaalka farsamadan, waxay 5taas ilbiriqsi isku beddeli doontaa 5 daqiiqo, 5 saacadood, 5 maalin ilaa aad ka xaqiijiso hadafkaagii. Mar kasta oo maskaxdaadu qaadato go'aamo saxa oo aadna aad fuliso go'aamadaas, waxay natiijadu noqotaa mid 100% lagu guulaysto.
keliya maskaxdaada ka dhaadhici inaad u dirto fariimaha saxda ah, kadib fulinteedu waxay kuu noqotaa mid kuu fudud. haddaba si kastay ahaato waxaan rabaa halkan inaan kugula wadaago dhowr tillaabo oo muhiim ah oo haddii aad barto maskaxdaada ee mudnaanta koowaad ay siin doonto waxyaabaha muhiimka ku ah iyo qorshooyinkaaga. qodobka koowaad waa inaad ka baxdaa waxa la yidhaahdo aagga raaxada. dabcan mar kasta oo aad hawshaada iyo hadafkaaga dib u dhigto waa inaad rabto inaad iskaaga dhex jirto aaggaaga raaxada, waana adigoon rabin inaad si dhaba u qabato hawshaada. waa inaad qirataa inaad rabin inaad wax isku daydo, inaad wax tijaabiso, inaad khataraha iyo caqabadaha ku horyaala aad ka gudubto. waxaad ogaataa inaysan naftaada weligeed guulaysan doonin haddii aadan ka bixin aagga raaxada aad ku jirto, waana inaad iska diiddaa fikradaha diidmada ama negatiifka ah ee aad maskaxdaada ku qufushay. waa inaad oggolaataa inaad wax qabato, inaad wax tijaabiso, adigoona diyaar u ah wax walba oo kaa hor yimaada inaad si cabsi la'aana u samayso. haddaad rabto inaad ganacsi samayso, inaad wax cusub barato, bas keliya samee. qodobka labaad waa inaad raacdaa tillaabooyin yaryar oo kugu caawin kara inaad hawshaada iyo shaqadaada aad jeclaato. yacni waxaad isku daydaa inaad hawshaada u qabato si tillaabo yaryar ah, adigoona markaas wakhti u qabanaya xilliga aad rabto inaad hawsha bilowdo iyo xilliga aad rabto inaad dhammayso, adigoona weliba wakhtiga aad hawshaas qabanayso aadan ka badinaynin ilaa iyo 5 daqiiqo. tusaale ka soo qaad waxaadba jeceshahay inaad subax walba aad samayso jimicsi, haddana iskuma dhibtid inaad hal subax xitaa aad isku daydo, balse ka waran haddii aad u qabato si tillaabo yaryar ah, adigoo markaas subax kasta u qorsheynaya inaad samayso 5 daqiiqo oo keliya. dabcan subax walba haddii aad sidaas u samayso, natiijada soo bixi doonta ayaa ah 10 daqiiqo, 20 daqiiqo, 30 daqiiqo, ilaa aad ka aragto subax kasta adigoo samaynaya ilaa iyo 1 saac oo jimicsi ah. qodobka saddexaad waa inaad ka fogaataa wax walba oo kaa jeedin kara hawshaada. tan micnaheedu waa inaad ka fogaato tuugada rabta inay wakhtigaaga xaddo, inay maskaxdaada jeediso, oo ugu horreeya moobeelka aad hadda gacantaada ku hayso oo kaa jeedinaya inaad howlahaaga iyo shaqooyinkaaga aad si dhaba u samayso. sidaa daraaddeed marka ugu horrayso aad rabto inaad hawshaada qabato, waa inaad ka fogaataa in moobeelkaaga uu si maalaayacniya uu kaaga mashquuliyo howlahaaga. waxaad niyaddaada gelisaa intaad moobeelkaaga ku mashquulsan tahay, intaad moobeelkaaga wakhti badan aad ku bixinayso maalinkaaga, inaadan weligaa xaqiijin doonin waxaad rabto inaad xaqiijiso. qodobka afaraad waa inaad joojisaa inaad isku dhex waddo howlo fara badan oo aadan isku dhex wadi karin. ogow, qofka bini'aadamka awood uma laha inuu hal jeer isku wada qabto shaqooyin fara badan, ee ha ku qasbin naftaada waxaysan awoodin. isku dhex wadidda howlaha faraha badan waxay keeni kartaa inaad hawshaada qaar ka caajisto, inaad dib u dhigasho badan samayso, iyo weliba xitaa inaad kalabar uga tagto howl aad wax badan ka soo shaqaynaysay. haddaba gabagabadii mawduuceena waxaad ogaataa inay dib u dhigistu tahay buur weyn oo noloshaada ku horgudban oo aad ku qasban tahay inaad iska hor leexiso. mawduuceena maantana intaas ayuu ku egyahay. wassalaamu calaykum.